kusoo dhawaada daawadayaal channelkeena Carab 24 qodob xiiso leh ayaan idiin soo gudbin doonaa bal marka hore subscribe dheh share and la wadaaga saxaabta ra'yigaagana hoos ugu wadaag qaybta commentiga mahadsanidin. maxkamad ku taala deegaanka Shanzu ee hoostaga magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa la soo taagay aabbo lagu helay dambi ah in uu si arxan darro ah u dilay laba gabdhood oo dhalay. John Min Hung Ombe ayaa xilli uu sarqaansanaa wuxuu shalay dilay laba gabdhood oo dhalay oo 6 sano jir iyo 4 sano jir kala ahaa, waxaana aabbaha la sheegay in dilka gabadhiisa uu adeegsaday gacantiisa uu ku ceejiyay. warbaahinta dalka Kenya ayaa ku warantay in aabbahan xilliga uu dilayay gabadhiisa uu cabsanaa khamri, waxaana xilligaas guriga ka maqnayd hooyada gabdhaha la dilay oo shaqo ku maqnayd. John Min Hung Ombe ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay in gacantiisa ku dilay labadiisa gabdhood, waxa uuna sheegay isaga oo qoomameynaya in miirkiisu joogin xilliga uu dilayay gabdhihiisa. garsooraha maxkamadda maanta la soo taagay aabbaha dilay caruurtiisa ayaa ku amartay in xabsiga lagu sii haayo maalmo dheeraad ah ninkan gacan ku dhiiglaha inta laga soo hubinayo xaaladiisa caafimaad. waxaa kaloo idiin haynaa afkiisa ayuu xiray muddo 30 maalmood ah fanaan Shiineys oo si yaab badan cabashadiisa ugu gudbiyay maamulka deegaankiisa. fanaan u dhashay dalka Shiinaha oo la yiraahdo Brother Nad oo ka gadoodsan ilaalada adag ee la duldhigay shacabka ee coronavirus uu sababay ayaa waxa uu afkiisa xiray muddo 30 maalmood ah oo biinka dharka lagu qalajiyay uu afkiisa ku taxay iyo gacmo gashi si uu u muujiyo dhibaatada shacabka haysata. Nad wuxuu wadaa mashruuc magaciisu yahay Shut Up for 30 days aamus muddo 30 maalmood ah. waxa uu afkiisa ku xiray sharooto uu ku dul qoray 404 oo ah astaanta soo muuqanaysa marka page aad internetka raadinayso uu ka qaldamo isla markaana ku soo baxaysa marka shay xasaasi ah oo aad internetka ka raadinayso la tirtiro. fanaankan 39 jirka ayaa waxa uu sumcad wanaagsan ku helay mashruuciisa uu fariin ugu gudbinayay maamulka deegaankiisa iyo dawladda dhexe ee Shiinaha. madaxweyne Xi Jinping waa sida uu wakaaladaha wararka ee Reuters u sheegay. Nad waxa uu leeyahay waxaan u baahanahay inaan fanaanka wax ku muujino, fanku waa sida ubaxa oo kale wuu koraa iyadoo uu dildilaac ku jiro, waxa uuna noo ogolaadaa inaan ciyaarno waqtiyada aan ugu murugo badannahay oo farxad aan ku dareeno. qodobkaasi xiisaha badan ayaan daawadayaal idinla wadaagaynay. hadda sidii badan subscribe dhaha share dhaha oo la wadaaga saxaabta mahadsanidin.